marka taasi waxay daliil u tahay sir weynaa ku jira hamiga caaliga ilahi waa u kaalmeeya qofka hamigiisu uu aad u sarreeyo walidaalika ibnu kathiir raximah اllahu tacaala wuxuu ka taariikheeyey saxaabada nebiga salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi iyo qeyb taabiciinta ka mid ahaa waa cabdullaahi bni cumar iyo curwat bnu zubayr muscab bnu zubayr iyo cabdilmelik bin marwan intaasaa wuxuu yidhi waxay ku kulmeen kacbaday ku kulmeen kacbada markay isugu yimaadeen ayaa waxay yidhaaheen nin walba wuxuu yidhi tamani maa kunta tashtahiihi min hadihi اlxayaa nin walba noloshaada waxaad ka ishtahaynaysay bal ha tamaniyo maadaama maanta aanu joogno aqdasu buqcatin min biqaaci اlard meeshii dhulka ugu nadiif badnayd oo dhulka ilaahay ugu fadliga badnaa nin walba waxaad haminaysay bal meeshan ku sheeg waan ducaysanaynaa wuxuu yidhi muscab bnu zubayr aniga waxaan rabaa u yidhi ciraaq weligay waxaan hamin jiray ciraaq inaan madax ka noqdo oon ciraaq ka taliyo taasina ilaahay ii xaqiijiyo ayaan ku ducaysanaynaa iyo gabar yacni carabta ka mid ahayd sukayna la dhihi jiray iyo dalxa waxaan leeyahay caaisha bintu dalxa caaisha bintu dalxa labadaa gabdhood sukayna iyo caaisha bintu dalxa waa dalxat bni cubaydillaah saxaabigii macruufka ee dhalay labadaas gabdhood oo ugu qurux badan quraysh inaan guursado ciraaqna aan ku darsado bis intaas haddaan helo facala dunya salaam adduunyada allah nabadgel meeshay ka dhacaysa ha ka dhacdo addunya intaa haddaan isku helo bis saas maya waa yahay allah kuu xaqiijiyo hadafkaaga waxaa haddana yani tamani la yidhi sheekhii la dhihi jiray saxaabigii cabdullahi bni cumar atamana aljanna uu yidhi anigu ilaahay jannaan ka tamanin u yidhi curwat bnu zubayr ayaa la yidhi adiguna tamani atamana alfiqha wa nashra alcilm fiqhiga iyo cilmiga inaan faafiyo ayaan anigu tamanin lahaa yuu yidhi cabdullahi bnu zubayraa la yidhi tamani markaasuu yidhi wilaayat اlxaramayn wilaayat اlxaramayn الshariifayn bis labadaas inaan anigu madax ka noqdaan rabaa yacni hamiga qofku uu xambaarsan yahay iyo moraalkiisa inta badan nolosha qofka mustaqbalkiisa waa ka soo baxaa inta badan waa ka soo baxaa sidii dhowr sanaa soo wareegtay mid walba ilaahay sidii uu ka dhigay nin walba muscab ibnu zubayr labadii gabdhood u guursaday ciraaqna madaxuu ka noqday markii dambena ciraaqa lagu dili cabdullahi bnu zubayr isagana sidii oo kale labadii xaranba ilaahay wuu u dhiibay ka bacdina xaramulmaka lagu dilay cabdullahi bnu zubayr haddii curwat bnu zubayrna waa ogtihiin taariikhda waa la socotaan min kibaari اlfuqahaa ayaa ilahay ka dhigay subxaanahu wa tacaala cabdullahi bni cumarna waa u rajaynaynaa jannat اlfirdows isagana ilahay waa u xaqiijinaya in sha allahu tacaala marka cabdilmeligaa soo maray cabdilmelik bin marwan wuxuu yidhi atamana alkhilaafa alcaama anuu ninkan xaramayn iyuu sheegay kan ciraaquu sheegay khilaafa caamaan rabaa u yidhi anigu muslimiinta inta ay degto dhan inaan u taliyo wiil yar u ahaa markaas ilahay waa u xaqiijiyey isagana khaliifat lmuslimiin oo dhan uu noqday cabdilmelik bin marwan marka adigoo hamigaaga ama daciif ka dhig oo hoos u dhig ama kor u qaad inta badan boqolkiiba 80 xaqiiquu noqon hamigaagu rajada laga qabo haddaad isdaciifisana meeshaa taallaa almar-u xayثu yadacu nafsah qofku naftiisa meeshuu dhigo ayuu yaallaa walidaalika humuumu اlambiyaa sidaasay ahaayeen nabiy llaahi sulaymaan mulku dunya oo qof u habboon aysan jirin isaga mooye dadkii kale xataa wuu ka ilaaliyey aniga bis mulki igu khaas ayaan doonayo yidhi makfirana ilaah uu weydiistay iyo dembi dhaaf nabiy llaahi yuusuf calayhi الsalaatu wasalaam markii jeelka uu ka soo baxay oo ilaahay uu yidhi falabitha fi sijni bidca siniin jeelkii intaasoo sanuu ku nagaado meesha uu ku daahay oo dulmiga lagu xidhay oo dhibaatadaa uu soo maray oo mar lagu tilmaamay yani islaantii ay masabidatay oo dulmigii ay ku masabidatay mar ceel lagu riday yani silsila min alimtixaanaat maa yakhruju min mixnatin ilaa wayadkhulu fii ukhraa dhibaato hadduu ka baxdo mid kalu gelayo
nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam markii jeelka laga soo saaray ninkii masar u talinayey ayuu u yimid wuxuu yidhi maxaad rabtaa masar jeelkii waa lagaa soo saaray masarna waad joogtaa maxaad jeclaan lahayd maxaad tamanin lahayd waxaa laga yaabaa qof annaga naga mid a haddii fursadda uu heli lahaa inuu dhihi lahaa war halkoo gurina hala ii dhiso bal xoogaana jeebka hala igu rido wax yaroo ciddii aan ku soo salaamo jeebka hala igu rido ma jirto qaala ijcalnii calىa khazaa'ini اlأrض inii xafiidun caliim daba fiirso hamigaas ijcalnii calىa khazaa'ini اlأrض wax jeeb la igu rido maya wax jeeb yar la igu rido cidda kusoo salaam maadaama xabsi aad ka soo baxday maya ijcalnii calىa khazaa'ini اlأrضi inii xafiidun caliim waxaan rabaa hor dhulka masar oo dhan dhaqaalihiisa inaad ii dhiibto dhulka masar oo dhan dhaqaalihiisa inaad ii dhiibto yacni waa mustawo oo markaas oo kale nin loo dhiibay yacni wasaara maaliya oo kale mustalax hadda aan naqaano wasaaradda maaliyadda oo dhan ay hoos imaanayso dhulka masar oo la og yahay wax soo saarkiisa webiyada yacni leh oo beeraha yacni masaaricda waaweyn leh dhulkaasoo dhan uu maamulayo khazaa'inta qaala ijcalnii calىa khazaa'ini اlأrض inii xafiidun caliim weliba mawaahibtiisii soo bandhigay inuu arrinkan xaqiijin karo ahalna u yahay wuu soo bandhigay nabiyullaahi yuusufo wuxuu yidhi wuxuu sheegtay alamaana wاlcilm inii xafiidun caliim oqoonna waan u leeyahay uu yidhi hawshan inaan maamulo nin amiinana waan ahay oo waxba ka khayaani maayo ummadda rasuul ilaahi aan ahay oo ambiyada ilaahi subxaanahu wa tacaala oo ilaahay uu ku fadilay masaayaadka faraha badanna waan ka mid ah taasaa marka humuum اlambiyaa fekerkoodu saas u ahaa adduun iyo aakhira qofka shaksiyadda ugu sarraysa inay noqdaan adduun iyo aakhiro walidaalika waxaa la yidhaha alhima alcaaliya marka la leeyahay bini aadamka keliya kuma jiro hamiga sare hamiga liitaana bini aadamka keliya kuma jiro xataa culimmada waxay yidhaahaan xayawaanaadka caadiga ah ayaa waxaa iskhilaafsan muraalkooda iyo hamiga ay xambaarsan yihiin waxaa la yidhaahaa alguraab laa yaqac ilaa calى اljiyaf wالsaqru laa yaqac ilaa calى اlxay baalkan dukaha la yidhaaho wax baktiya maahana wax kale inuu isagu shaqaysan karo maba aaminsana uus neefoo meel maaragtaa yaalla iyo markuu quraac ama qada raadsanayo uus neefoo meel yaalla iyo neef baktiyoo bahal kaleo laga yaabo isaga inuu ka daciifsan yahay uu maaragtaahay dilay bahal meel yaallo waa hore iska uray iyo xaasuu ka daba warwareegaa kuma fekero weligii war wax qabso oo wax wanaagsan iyo quud wanaagsan waad ku noolaan kartaa culimmadu waxay yidhahaan ma lahan waa geed hamigiisu aad iyo muraalkiisu u dhinsan yahay walidaalika mahmaaha waxaa jirta laga sameeyo oo waxaa la yidhaahaa dadkan walaalaheena heer aalta jubba waxay yidhaahaan hinshareera lankii hordareerkiis naqada haara amooma horaasi leh waxay yidhaahaan bahalkana waxay u yaqaanaan hinshareeray u yaqaanaan hinshareera dukaha annagaa u naqaan marka waxay dhahaan hinshareere lankii hordareerkiis naqado haar amooma horaasi leh yacni ulajeedada waxaa weye bahalkaas dukaha ah lankii hordareerkiis naqado qofka uu yacni hogaamiyo wa duko i hogaami qofkii tidhaahaa haar aamowma horaasi isagana marka dambe saxaroo cunaa iyo xar ilaa meel carfaysa ma tago meel udgeysa maba tagoba marka ulajeedada maxay ka wadaan qof hamigiisu iska dhinsan yahay hadduu adna yacni saaxiib kula yahay ood la saaxiibto qof hamigiisu daciif yahay adigana haar aamowma horaasi adna haar aamowma horaasi adigana baktigaasaa dul fadhiya iyo noloshaas xun weligaa cumrigaa ku dhammaysan walidaalika marka la daraasaynayo mawduucan yacni alhima alcaaliya marka la daraasaynayo waxaa la yidhaha asbaabta lagu gaari karo waxaa ka mid ah in laga fogaado dadka aad ku aragto hamigooda inuu daciif yahay suxbadana loo jaro maxaa yeelay qofka saaxiibkaa wuxuu sameeyaa barmaja salbiya waxaa kugu dhacaaya falaashyo oo qalbigaaga ku dhacaya mar walbaba
وهمجاga dilaya qofka haddaad la saaxiibto waxaad is leedahay war waxaan qabsanno war magaalada aan wax ka qabanno ummadda waxaan u qaban karnaa sheekh dagaalaa lagu jiraa dagaalaa socda hebel meeshaana la dhigay saaxiibka naga horreeya meeshaasoo ku dhintay hebel meeshaasoo ku dhintay mawduucaan nin hadda ka hor bilaabay afaraa bilaabay afartiina waa la dilay bas guryaha aan isku xirno salaadaas haddaan duka karno bas dadna waxma baran karno annagana xataa waxma baran karno salaadaas haddaan dukano bas waa la barmajeeyey waa qunfuleeyaha miskiinkaas marka maxaa yeelay bii'ada nafteeda waa laga qaataa hamigii moraalka dilan bii'ada iyo dadka kugu hareeraysan waa laga qaataa way kugu sameeyaan hadda ka hora waxaa la yidhaha tusaale cajiibay usoo qaataanoo gorgora waxaa la yidhi ninaa ukun gorgor uu soo ugaarta markaasuu dooro hoosta ka dhigay wuxuu is leeyahay dooradani ukuntaa gorgor way yani siday u fiiqdo doorooyinka kale u fiiqi doontaa ukuntii marka gorgorka wa ficlan dooradii way fiiqday waxaa ka soo baxay bahal feero weyn oo xoogaa doorooyinkii ka garba waaweyn oo ka feero weyn doorooyinkiisu iskala lafalafaystaahoo qashankaas ilaa dooro iska gurubsanay moogta qashankii gorgorkii wax ka gurubsadaa maalintii dambe waxaa la yidhaha gorgorkii wuxuu arkay gorgorro kale cirka haadayo yacni bahashan sagaarada la yidhaha beerkeeda iyo iska sito wax macaan badan iska cunaaya markaasuu kuwii kale wuxuu ku yidhi war sida kuwaan oo kale maan ku noolaan dooranyihin kuwaan hilibay sitaan subax walba hilibay nala dul marayaane hilibkan oo kale maan gaarno markaas shibshib kuwaas haddaan aragno waana cunaan annaga masaaxo haddaa rabtid hulkaaga gal luuqaaga gal hilib iyo kuwaas safkooda aan galo ma jirto taas waa lagu cuna waa iska cararay miskiinkii waana gorgorade markaasuu dooro la nooliyo la jooga waa la barmajiyey sidii loogu wadaa dooro laga dhigay isna dooraa laga dhiga isna humuumtiisii dhammaan waa la dilay humuumtiisii dhammaay waa la dilay mawaahibtii rabbaaniyo uu xambaarsanaayo dhan waa laga dilay waa iska qarqaraabtay waad aragteenoo dooradu way jartaa markay weynaadaan doorooyinku jiljilayaashu markay soo kobcaan kii u soo dhawaada gow ay siisaa waxay ula jeedaa qaraabo marka qaraabo gow kii u soo dhawaada madaxay gow ka siin waa qaraabateed iga tagay leeda marka say gow u siinaysay midba meel ku cirdaynaysay asagiyaa soo haray gorgorkii keligiis wuxuu marka muncasil ka noqday bii'ad barnaja salbiya ku samaynaysa oo niyadda ka dilaysay uu gooni ka noqday keligiisuu noolaaday subaxii dambe wuxuu arkay gorgorradii haddana korkiisa maraayo hilib iska wata iyo beer kuwii wuxuu yidhi ku barmajaynayo ma joogaane bal saaka isku day inaad haadi kartid labadii baalo isku dhuftay waa haaday kuwii iska daba raacay gorgorradii sagaaray dharbaaxay ku dhufteen beerkay kala baxeen asna beerku kala bax war saaka wax macaanaadba ku quraactuu yidhi war balaayada ilaa awooddaana ilaahay ku siiyey ilaa balaaya bii'a xuna waxaad ku dhex noolay wax matarta ahoo wax maqabato ahoo jinni ah jinnigaasaa ilaa ku heystay noloshiisiisuu iska galay maalintii dambe waxaa la yidhaha markuu noloshiisii fiicnayd arkay uu kuwii barmajaynayey isaguna mid fiican ma noqone uu kulli wada cunayaa la yidhi doorooyinkii baabi'iyey waxaanaad iga xayirayseen uu yidhi waxaanaad iga xayirayseen noloshan marka yacni culimmadu waxay yidhaahaan bii'ada hima alcaaliya iyo suquud اlhima labadaba saameyn weyn waxaa ku yeelan kara bacda hiqati biاllaah bii'ada qofka uu ku dhex noolyahay dadka kugu hareeraysan hadday aaminsan yihiin inaan waxba la qaban karin macnaheeda noloshaada dhan halkaasaad fadhiisan adigan waxba ma qabsan kartid walidaalika waxaa la yidhaahaa xayawaanaadka sidaasay hamiga ugu kala duwan yihiin bini aadamku sidaasa iyaguna humuumtoodu ay u kala duwan tahay